waxaan rabaa in kelmad yar aan ka iraado dhinaca doorashooyinka. waxaan filayaa waxaan ku jirnaa doorashooyinkii. waxaa laga soo gudbay oo la doortay aqalkii sare ee baarlamaanka oo xubnihiisa ay ka kooban yihiin 54 senator. bishii November oo kowdeedii oo aan soo dhaafnay waxaa la doortay xildhibaankii ugu horeeyay oo golaha shacabka. maanta waxaan joognaa 25 December. tirada guud ee golaha shacabka oo la doortay waa 24 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka. taas oo ka dhigaysa tirada guud markaa fiirisaan 275 xildhibaan boqolkiiba 9 wax ka yar. waxaan aaminsanahay 55 maalmood 30 maalmood oo bishii November iyo 25 maalmood oo bisha December marka la isku daro oo 55 maalmood haddii lagu doortay 24 xildhibaan oo golaha shacabka baarlamaanka ka mid ah maxaan filan karnaa tirada hartay ay tahay 251 xildhibaan. doorashadoo la dedejiya waxay muhiim u tahay amniga dalka, waxay muhiim u tahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga, waxay muhiim u tahay nolosha guud ee shacabka Soomaaliyeed. waxaan u soo jeedinaynaa dawladda federaalka iyo dawladaha xubinta ka dawladda federaalka oo mas'uuliyadda doorashada dadban qaatay inay waddankan ka badbaadiyaan wixii hadda ka dambeeya in dib u dhac uu ku yimaado doorashada. sida aad la socotaan sida aad la socotaan 26 bishii 9aad 2011 baarlamaanka wuxuu ansixiyay heshiiskii siyaasadeed ee 17 September. heshiiskaas haddaad akhriseen waxaa ku qoran heshiiska siyaasadeed ee jihaynta doorashooyinka ama doorashada baarlamaanka federaalka ee 2020 ayaa ku qoran. heshiiskaas siyaasadeed oo baarlamaanka uu ansixiyay oo madaxweynaha uu ku soo saaray sharci number 30 oo uu ku ogolaaday in heshiiskaas siyaasadeed uu noqdo heshiis lagu aado doorashada. waxaa ku qornayd inuu ku eg yahay 2021 waxaan rabnaa inay ku buraaragaan dadka u xilsaaran doorashada. waxaan aaminsanahay muddada hartay bishan December ka hartay aaday muhiim u tahay. waxaan aaminsanahay sharciga waa la socoteen annaga markaa akhrisaan sharciga 17 September qodobka 3aad wuxuu ka hadlayaa ilaalinta firaaq dastuuriya iyo waddanka uu ka dhaco. taa markaa sababi karta in hay'adihii dastuuriga qaar ka mida ay dumaan. waddan jira oo calankiisii United Nationska uu suran yahay in hay'adihiisii dastuuriga ahaa oo siyaadada waddanka hayay ayadoon kuwa kala bedelin meesha ay ka baxaan waa ka taxdirnay. waxaan soo saarnay sharcigii lagu ilaalin lahaa waxaana la bedelay hore loo bedelay qodob ka mid ah qodobada dastuurka. sharci number 30 wuu sii jiri doonaa ilaa baarlamaanka 11aad laga dhaariyo. aadaan ugu faraxsanahay in ilaa hadda ilaahay uu nagu badbaadiyey. dadaalka annaga keliya ma ahana ilaah uuna badbaadiyey. aad iyo aad u mahadsantiin. hadda ka hor hadalladeydii waxaa ka mid ahaa jirtay madaxweynuhu sidii ruuxaantii oo kale dadka soo dhaxadla warka shalay meeshaas khudbooyinka laga jeediyey midda farmaajo intentionkiisa ahayd miduu mursal jeediye waaye ee miduu farmaajo jeediye maaha. maxamed mursal dalkan hadda ka hor uu khatar geliyey
extension غير الشرعي أو أنجرنو كل واقعي قطروا وقال الدلكان وأغنهي إلهي سبحانه وتعالى أوديس يدد مسؤوليين وقدم قنا يدلكان أي اللي جبت بعد قطرتاس وأكتين الشرع الدراء وقوانين الدستور كأوافق سنين أيوة الله بس إنه إكستنشن وأنسحي شلي وعد القبطي عد كل رأسا عد شرعية وصومر من أنا جل شلي وركيسة تيو كلا هدنا كم موقته وكدجينا وضداس وضل مرماها وحرنته بار قال الشعب وقت جيس دمار أو حل ما ندي قالها شعب كاي قاركود أي سر ترى النقدين أو قوة كراستي أي وايين وبنانك أي مرن وبدل كودي والله دورت لليه تاجين ما أنت إن اللي يراد برلمان الجيران شيرين إن سكيننا لبدا أقل برلمان كوكا معدين متجرو ما أنت أقل سراجل قالها شعب كحالدي سو أساس مرسل الباب كاس وحرية هاي محمد مرسلو dhinac la aadamaha sanadkii hore ilaahay ku ceeb asturay hadda ha u noqonin bisha abril ee sanadkan bilowgiisa ahayd ayaa ilaahay ku ceeb asturay ha u noqon wada la mara ma aha qatar waaye kulama wadaagayo afkaaga erayada ka soo baxaya farmaajo ama asagoo ha rabo ama ha kuu soo dirsado ama asaga ha ka timaado ama wuxuu doona ha noqdee farmaajo afkiisa ha ku dhahdo waxa uu rabo shalay warka maxamed mursal uu yiri iyo warka xal farmaajo soo qoraya isle baarlamaankii yaa joogo loo yeerayaa iyo waa dhacay xilliga doorashada waa dhamaaday December uu ku egyahay iyo waxa soo dhan cid dadka Soomaaliyeed inay aqri waayaan waxaas macquul ma aha anana maxamed mursal wadaasa ka joogo farmaajo shalow ku hoday mar kale iyo ku hodin ma soconayso dadka Soomaaliyeed ma aqbalayaan hortiis jiraa waayay dalkan wada aan ahayn wadadaas dimuqraadiyadda uma furna jamhuuriyadda saddexaad ee carta ka soo bilaabatay ilaa maanta waa qorsu dhiib xilligay leedahay xilligeeday ku qabsoomaysay dadaalada maalmo iyo bilo iyo dibay ula dhici kareen laakiin sanada hadda soo wareegtay in haddana la sii wado sanad kale waa la sii joogayaa la yiraahdo albaabada dhanna maalin walba midkii furmi tagaba la soo oodo macquul ma aha فرصة ماشي جرتها آدي أيان أبو كلسنهاي قالهاس وتشي قرن إن أي مسؤولية دو جودن دونان ومحن كرا باقي رئيس الوزراء وكباقي شركة إقبال دونان إيمان دونان وحي خلدنا أي صح دونان إن يمادين إسكو يمادين إسسور فلسطين عبادة معها وإن وحصحان ورجينا وحي قلدمي إن للصحة وضدنا أساس أي دور شده كل ما تمد كوبا xaaladan dalkan kuma sii sugnaa karo haddaan dhinacaas taas uga baxo oo dhinaca amniga iyo security-ga u yeerto dhowr maro horena waa ku celin ninna kuma amri karo sarkaalow waxaan sharciga waafaqsanayn qof walba qawaaniinta iyo shuruucda lagu heshiiyaa ka weyn janan lagaa dhigyaa adoo shalay askari ahayd iyo maxaanku idhahdaa abaalmarin kale meel kale lagu waxeeyaa iyo adigoo maxaanku iraahdaa baagamuundo ah jidka joogi jiray diblomaasiya tahay lagu yiriyaaba macnaheeda maaha inaad dalkaana adiga mas'uuliyadiisa qoorta gashan kartid dadka waxa ayaan daranaa la yiraahdaa aakhira ninkii cadaab ku mutaysta dambi uu nin kale daraadis u galay dambiga adiga gashay ilaahay kugu xisaabtamo waa la gartabo laakiin nin kale daraadis inaa u dambaawdid waa meesha ugu dadnimada ugu liidata war yaan dad kale loo dambaabina dalkana ha loo turo ummadana annagaa mas-uuliyadeeda iyo ummadnimadeeda iyo hoggaankeedii soo doonanay oo u taagan kuwa maanta shalay haye iyo kuwa maanta u socdaana waa isku mid dalka mas-uulaa laga wada yahay qofna mas-uul uma aha dalka sidoo raba inuu ka yeelo wuxuu mas-uul ugu yahay wixii lagu doortay qawaaniintii iyo lawaaxidii inuu ku hogaamiyo haddii la iska waayana arrin la iska aqbali doono ma ahan xaaladda dalka meeshaasay maray meeshaasaanan la jecelnahay waxaana rajaynaynaa 24 saac ee soo socdo shirkaasi inuu muxuu ahaa ifafaariisa ay noqdaan ay hore u socdaan maanta la joogo waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo kusoo gunaado midowga murashaxiinta hortabintiisa koobaad ama prioritigiisa koobaad waxa waaye doorasho dalkan inay ka dhacdo si nabada ku dhacdo doorasho la aqbali karo wada ogol ah inay dhacdo waaye
haddii la waayo maxaa dhacayo taas waa uun hawl kala waaye maalinteedana waa ka hadli doona haddii la yidhaha aad iyo aad aa umahadsantihiin codka soomaalida t v waa channel u hadla dadka aan codka lahayn u baahiya baahiyahooda waana bilaa shuruude fadlan si aad noogu soo biirto subscribe dhaho nalana wadaag fikradahaaga noona sheeg inaad naga heshay in kale oo like saar